بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. walaalayaal sida aad ula socoteen muddo hadda bil dhow ayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre uu ka waday isaga iyo wafdi uu hogaaminayo dowladda federaalka in arrimaha galmudug oo xoogaa maamul ahaan iyo siyaasad ahaan u cakirmay in wax laga qabto, dadka la heshiisiiyo, doorasho cusubna la qabto si maamul ugu dhismo dowlad goboleedkan. maamul goboleedkaas cusub oo la dhisaayana uu noqdo midkii bedeli lahaa maamulkii taariikhda 4 Julaay uu dhammaaday mandatekiisi. ra'iisul wasaaruhu galmudug wuxuu kala hadlay arrimo ay ugu muhiimsan yihiin 3 qodob. qodobka koowaad oo ahaa qaramaynta ciidamada deegaanka jooga iyo in lagu soo kordhiyo ciidamo federaal ah, ujeedaduna ay tahay in la sugo amniga haddii ay tahay doorashooyin iyo dib u heshiisiin in lagu qabto galmudug magaalo madaxdeeda Dhuusamareeb. qodobka labaad carabkana waa ku dhuftay, waa arrinka dib u heshiisiinta. waxaa laga shaqaynayay in barnaamij laga hirgeliyo halkan dib u heshiisiineed la isugu keeno dhammaan beelaha dhaqanka iyo cid walboo nufuud ku leh arrimaha galmudug halkan la isugu keeno, lagu heshiiyo, heshiiskaas kadibna loo gudbo qodobka 3aad oo ah doorashada. arrinka marka caawa aan rabo inaan ka sameeyo war-saxaafadeedkan waa qodobka 2aad oo ah arrinka dib u heshiisiinta. sida la isla gartay waxaa la rabaa in lagu qabto, waxaa la qorsheeyey in lagu qabto magaalo madaxda dowlad goboleedka galmudug ee Dhuusamareeb ee aan hadda idinkala hadlayo shir dib u heshiisiineed. marka war-saxaafadeedka aan idin akhrin doono waa wareegto wasaaraddu ka soo saartay arrimahaas u diyaargarowgooda, dhexgalkooda iyo dhammaystirkooda intaba. bismi illaahi raxmaan araxiim. maanta oo ay taariikhdu tahay 17 bisha 7 2019 dhismaha guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta markuu dhageystay tala bixinta mas-uuliyiinta galmudug ku mathila golayaasha qaranka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed, markuu dhageystay dhaqanka, culimada, waxgaradka iyo dhammaan bulshada reer galmudug, markuu arkay baahida loo qabo dib u heshiisiin iyo isu soo dhoweyn dhex marta shacabka galmudug si loogu diyaariyo inay wada dhistaan maamul dowlad goboleed oo ay u dhan yihiin, markuu tixgeliyey heshiisyadii siyaasadeed oo ay wada gaareen dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka galmudug, isagoo ku baraarugsan in la joogo wakhtigii la dhisi lahaa maamul dowlad goboleed galmudug oo bedela maamulka hadda wakhtigiisu dhammaaday, isagoo dareensan khatarta amni iyo midda maamul ee shacabka galmudug soo wajihi karta haddii wakhtigan xasaasiga ah aan galmudug dhisan maamul la isku raacsan yahay. wasiirku wuxuu go'aamiyey markuu intaas arkay qodobka koowaad dhisidda guddi qabanqaabo. in la dhiso guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiineed oo ay ka qayb galaan dhammaan beelaha wadadega galmudug. fadhiga shirku wuxuu noqonayaa magaalo madaxda dowlad goboleedka galmudug ee Dhuusamareeb. qodobka 2aad tirada xubnaha guddiga iyo guddoonka. guddigu wuxuu ka koobnaanayaa 12 xubnood oo ka kala socda beelaha degan dowlad goboleedka galmudug. marka la soo dhammaystiro xubnaha guddigu waxay iska dhex dooranayaan 1 guddoomiye, 2 guddoomiye ku-xigeen, 3 xoghaye.
hawsha guddigu waxay noqonaysaa mas-uuliyad wadareed. qodobka saddexaad, magacyada xubnaha guddiga. 1 cabdiraxmaan macalin cabdulaahi baadiyow. 2 maxamed nuur gacal. 3 aadan cusmaan xuseen. 4 maxamed maxamuud gacmo dheere. 5 cabdikaafi maxamed maxamuud. 6 xasan maxamed jimcaale. 7 ambaasadhar cabdi xaaji liibaan dhabancad. 8 faadumo axmed caalin cureeji. 9 cabdi maxamed jaamac. 10 mahad aadan guuleed. 11 cabdulaahi aadan xaashi. 12 sahre colaad cabdi. qodobka afraad ee wareegtada, guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta galmudug. guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta galmudug waxay u xil saaran yihiin xiriirka beelaha, soo ururinta iyo isu keenidda ergooyinka beelaha ku mathilaya shirweynaha, daadihinta shirka iyo xaqiijinta qaabkii xal waara looga gaari lahaa khilaafaadka bulsho iyo kuwa siyaasadeed ee ka dhex jira beelaha galmudug. qodobka 5aad, guddiga waxaa la howlgelaya xoghayn ka wakiil ah wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta oo si siman ula shaqayn doonta guddiga qabanqaabada shirka iyo shirweynaha labadaba. qodobka 6aad ee ugu dambeeya, waajibaadka shaqo ee guddiga qabanqaabada iyo xoghaynta wasaaradda arrimaha gudaha waxaa lagu qeexayaa lifaaq gaar ah oo lala wadaagi doono guddiga iyo xoghaynta labadaba. wada shaqayn wacan iyo guul insha allah. waxaa saxiixay wasiirka arrimaha gudaha, taariikhdu maanta ah 17 bisha 7 2019. bilaahi towfiiq waa mahadsantihiin.